ismaqal iyo daawasho wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka Baadiso Media 17 bisha 9 sanada 2020 qodobada warkeena ugu door korona waxaa kamid ah maamulada Jubbaland iyo Puntland oo arrimo xasaasi ah kala hadlay beesha caalamka siyaasi Salaad Cali Jeelo oo si kulul ugu jawaabay madasha xisbiyada qaranka macallimiin sufic isku jiray oo lagu leeyahay degmada Cadaale ee gobolka Shabeellada Dhexe qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawadada warkeena haddii Allah awoodo leh idmo iminkana ku soo dhawaada warkii official faahfaahinno dheeri ayaa waxaa laga helayaa kulamo ay magaalada Muqdisho kula yeesheen wasiirka ka tirsan Jubbaland Puntland xubno ka socda beesha caalamka loogana hadlayay arrimaha xasaasiga kulankan ayaa waxaa si gaar beesha caalamka ula yeesheen wasiir dawlaha madaxtooyada maamulka Jubbaland Xiseen Jaamac Gaani iyo wasiir dawlaha wasaaradda maaliyadda maamul goboleedka Puntland Maxamed Cabdiqaadir Cismaan labada wasiir dawlo ayaa kulamo wakiilada qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Fon iyo safiirka UK Bana Vanda iyo safiirka Mareykanka Doonaya Yamota iyo safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Belanchi sidoo kale waxay ka wada hadleen arrimo ay kamid yihiin kobcinta dakhliga gudaha deynta cafinta Soomaaliya deeqaha adduunka ugu deeqda Soomaaliya horumarinta lagu sameeyo dib u habaynta hanaanka maaliyadda iyo arrimo kale oo xasaasi ah waxa kale oo ay isla soo qaadeen labada dhinac arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee xilligan taagan gaar ahaan doorashooyinka ka socda 2020 sanada 2021 ila ku dhow shirkadda ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta inay xubnaha beesha caalamku ay ballan qaadeen inay taageeri u fidin doonaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland si kastaba ha ahaatee hogaamiyayaasha labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ayaa maalmahan ku sugan Muqdisho iyagoo u jooga shirka wada tashiga dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo gobolada Banaadir looga hadlayo doorashooyinka soo socda siyaasi Salaad Cali Jeelo warramaya warbaahinta ayaa si kulul ugu jawaabay hogaanka madasha xisbiyada qaranka ee dhaweyn eedamo culus u jeediyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya Salaad Cali Jeelo lagu tiriyo siyaasiyiinta taageerta madaxweyne Farmaajo isla markaana banaanka ka difaacay dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in madasha xisbiyada qaranka ay iska horkeenayso ummadda Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u yiri sidoo kale wuxuu intaas ku daray in hogaanka madasha ay doonayaan in xilligan la kala qalalaas siyaasadeed oo hor leh siyaasi Salaad Cali Jeelo hadalkiisa sii wata ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray madaxda ee ahaa inay dhisayaan dawlad gaar ah haddii aysan dawladda ka shaqeyneen arrimaha doorashooyinka iyo deganaanshaha dalka in colaad ugu baaqdo inay dadku kala tagaan ay saf garan waayaan inaad dhiirigeliso runtii waa arrin aad loogu xumaado ayuu yiri Salaad Cali Jeelo ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in hadalkan iyo digniintaas aan loo meedeyn ay ka dhalan karto cawaaqib xumo loona baahan yahay in laga feejignaado hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo dhawaan ay madasha xisbiyada qaranku ay si adag uga hadleen xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020 ilaa 2021 iyagoo si gaar ah kali talisnimo ugu eedeeyay madaxweyne Farmaajo marka aan ka helino Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in saaka weerar lagu laayay macallimiin dugsi Quraan oo ka dhacay qaybo kamid ah gobolkaas weerarkan oo ay fuliyeen rag hubeysan oo wali la garanayn heybtooda ayaa ka dhacay duleedka degmada Cadaale ee gobolka Shabeellada Dhexe kooxda weerarka fulisay ayaa bartilmaameedsanay goob ay ku sugnaayeen macallimiin xilli ay Quraan akhris ku jireen ama subcis ugu yaraan 5 macallin ayaa ku dhimatay halkaas sida ay Baadiso Media u xaqiijiyeen ila deegaanka lagu kalsoon yahay kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Sheekh Daahir Xasan Cali iyo macallin Maxamuud Cambuur iyo macallin Maxamed Xuseen Axmed Cadaawe iyo macallin Mukhtaar Cabdilaahi Cilmi iyo Aw Maxamuud Xasan sidoo kale wadaadada la laayay ayaa waxaa kamid ahaa 2 macallin oo walaalo ah kuwaas oo kala ah Sheekh Daahir Xasan Cali iyo Aw Maxamuud Xasan Cali macallimiinta la dilay ayaa saaka salaadii ka hor bilaabay subax salaadii kadibna ku laabtay Quraan akhris waxaana kadib sidaas ku laayay dableyda wararka qaar ayaa sheegay in dhacdadaas ay salka ku hayso arrimo la xiriira aana qabiil oo ka taagan deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada Cadaale ee Hirshabeelle oo ku aadan dhacdadaas dhawaan ayay ahayd markii degmada Warshiikh aana qabiil darteed loogu dilay oday jira 100 sano falkaas oo lama filaan ku noqday dad badan oo Soomaaliyeed